Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan khiyaarta ku xiran channelka MNCT Videos. Waxaan idiin wadaa muuqaal cusub oo ka duwan dhammaan muuqaaladii aan hore u soo geeyay channelka. Muuqaalkan ama videogan waxa uu yahay video ku saabsan Facebook Messenger. Facebook Messenger ama Messenger Facebook-gaaga ayuu ku saabsan yahay muuqaalkan habkan idinku soo gudbin doono ama aan idinku tusi doono waa laga yaabaa in badan oo ka mid ah daawadayaasha muuqaalkan ay hore u isticmaaleen, in kalena aysan weli arkin. Horta haddii aad hore u isticmaashay shaxdan ama qaabkan aan maanta videogan kusoo gudbin doono hambalyo, balse haddii aadan hore u arkin ka faa'iidaysi wacan. Haddaba qaabkan waxa uu yahay khiyaarta, waxaanu ku saabsan yahay Facebook Messenger-kaaga soo furo. Facebook Messenger-kaaga markaad soo furato, horta intaanan howl bilaabin aan is ogeysiino ujeedkeena iyo meesha aan u socno, waayo anigoon is ogeysiin aan u socno ma socon karno, waa baabuur shidaal la'aan. Khiyaarta marka videogan waxa uu yahay in aad iska mute gareyso ama aad silent iska saarto hal qof oo keliya. Runaantii markii aan mashquulsanahay ama aan rabnay in aan qof ama shaqsi Facebook ha ahaado ama WhatsApp ha ahaado in aan taleefankeena dhan codka ka jarno. Maanta kadib taleefankaada dhan codka ha ka xirin, waayo program kasta ama system kasta waxa uu wataa barnaamij la yiraahdo mute. Waxaa loogu talagalay in aad iska saarto taleefankaada dhan. Mute waa dhahan kartaa oo systemka taleefanka waa uu wataa mute, balse program kasta ama app kasta oo aad soo tuurato mute waa uu leeyahay. Appkan hadda oo Messenger-ka waxa uu leeyahay mute-kiisa ayaan caawa videogan idinku soo gudbin doonaa, isagoo leh habab kaleeto oo fara badan. Hababkaas maadaama aan caawa videogan uu ku saabsan yahay halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa halkaas xabo, waana idinku tusi doonaa videogan gudihiisa insha Allah. Khiyaarta mute markaad doonayso inaad hal qof iska saarto oo aadan marnaba arkin waxyaabaha uu kuu soo diro ama notification-kiisa uusan marnaba kusoo gaarin, waad saaran kartaa hal qof oo keliya. Hadda aan saarno marka hal qof. Ani waxaan rabaa in aan saaro shaqsigan, qofkan inaan saaro mute ayaan rabaa. Haddii aan rabo inaan mute qofkaas saaro, waxaan sameynaa xaggeesa u maraa. Khiyaarta way fududahay inaad hal qof mute iska saarto. Taaba qofka aad doonayso inaad mute saarto oo aadan marnaba arkin waxyaabaha uu soo diro ama fariimaha dhankiisa kaaga imaado, maadaama aad mashquulsan tahay, isla markaana aad mararka qaar dalkaada dhan ka jirto ama silent wada saarto, si dadka kaleeto oo wadanaha gaarka ka leedahay fariimahooda xataa aadan u helin. Maanta kadib ha iska saarin dalkaaga wax mute ah, balse haddii aad imtixaan diyaarinayso lama talinayo hal qof mute iska saar, waayo dadka kale ayagana way ku mashquulinayaan. Dadka dhan iska saar mute, dalkaaga dhan silent mode saaro. Balse waxaan ka hadlayaa mararka qaar oo dad ama dad kaleeto oo marmarka qaar la hadlaysa marmarna aadan la hadlaynin in aad mute iska saarto ayaan kaala hadlayaa oo keliya. Marka qofkan ayaan rabaa in aan saaro si aan hore idinku sheegabo. Qofka aad doonaysa inaad mute saarto, kadibna ka dooro notification-ka kuu soo bixi doono mute, ama amarada uu ku siin doono ka dooro mute notification. Bal aan doorto hadda iyo waxa uu sameeyo aynu wada aragno. Mute waan doortay. Khiyaarta waxa uu kuu soo qoraa marka mute notification for this conversation. Fariimaha uu kuu soo dirayo ama qof wada sheekaysiga qofkan hore idinka dhacay fariimaha kaaga imaanaya mute iska saar.
ayuu ku leeyahay amarkan. mute aad iska saartid maxume imise daqiiqo ayaan qofka mute ka saaray oo ku yiri 15 minutes ma mashquul tahay, 1 hour ma mashquul tahay, up to 24 hours until waad ka dhigi kartaa alarmi until alarmiga kugu xiran ayuu kuu sheegaa ilaa 10 saac iyo 4 ilaa 10 saac iyo 30 laga gaaro ma waxaana uu ku leeyahay, ama until turn it back on ilaa aad ka laabatid ama in aad inta imaato aad mute ka qaado gacantaada ku saartid gacantaadana ugu qaado until taas ilaa aad ka qaadid kama qaadman doonto. marka soo adiga waxaaba ku jirtaa shir kaba soo qabo ama waad mashquulsan tahay ama imtixaan ayaa doonaysaa inaad akhriso 1 hour 1kaas hour qof ayaad iska wada saaraysaa ama notificationada kale ayaad la dooranaysaa 1 hour ayaad na saaranaysaa ama 15 minutes inta hadba inta aad doonayso in qofka mute laga saaro. ani 15 ayaa hadda dooranayaa maadaama ay tusaale oo kaliya tahay oo aan qofkaan doonaynin inaad mute saaro. marka 15 minutes ayaad dooranaysaa okay ayaad leedahay. qofka inuu mute ku saarnay sideed ku garanaysaa akhyaarta? mute sign ayaa halkaas idinka muuqato calaamadda mute-ka oo qofkan waxba hadduu kuu soo diro ama fariin dhankiisa kaaga imaato kuma soo gaari doonto insha Allah. marka WhatsApp messengerka ama Facebook messengerka waxa uu leeyahay barnaamijyo badan ama amaro badan ayuu leeyahay. kaba soo qaba hadda amarka anaga ma saarnay ama aan videogan ku falanqeynayno waxa waxa oo kaliya waxaan ka hadlaynay mute oo kaliya maadaama aan ka hadlaynay waxaa jiro amaro kaleeto oo aan weli ka hadlin, balse amaradan kaleeto waan ka hadli doonaa insha Allah. video kale ayaan idinku soo duubi doonaa waxyaabo badan oo ku aadan WhatsApp-ka ama Facebook messengerka. mar kale ayaan video kale idinku soo duubi doonaa maadaama aan hal cabo waxaan laga gaarin oo ay fara badan yihiin. caawa waxaan ka baganay mute insha Allah. barnaamijyada kaleeto ama siraha kale oo ku qarsan ayaan video kale ayaan idinku soo duubi doonaa insha Allah. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. ha iloobina akhyaarta in aad channelka subscribe dhahdaan gambalaalkana taabataan si uu idiin soo gaaro muuqaal walba oo faa'iido leh oo aan soo gelin channelka NNZTS videos. mahadsanidin. guuleysta.